بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulantii waxaan wanaagsan ku soo dhawaada Solar Vlog Travel oo aan mar walba idin ka soo gudbiyo meelaha safarada xiisaha leh aan ku maro daafaha dunida waxaan idin ka soo salaamayaa caasimadda waddanka Kenya magaalada caanka ah ay ku nool yihiin 4.4 milyan Nairobi waa magaalo aad u weyn waa bartamaha magaalada wadada caanka ah ee la yiraahdo Kenyatta Avenue la yiraahdo oo bartamaha magaalada ku taala Kenyatta Avenue waxa loogu magac daray tabcan shakhsigii ka dambeeyay xorriyada waddankan Kenya isla markaana aabihii dhalay madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo la oran jiray Jomo Kenyatta magaaladan waa powerhouse magaalo aad u dhisan oo taariikh aad u dheer leh waqtigii gumaystaha Ingiriiska ilaa iyo haddana ay noqotay meel ganacsiga waxbarashada wax walba loo yimaado tabcan magaalada Muqdisho hal saac iyo bar ayaa looga socdaa magaalada Nairobi waxaana ganacsi aad u fara badan ku leh Soomaali aad u fara badan oo badnaato dhanka iyo xaafadda ku taala bariga ee la yiraahdo Isli iyo meelaha kale ee kala duwan hoteelada businesska nooca dhismaha ah waxay ku leeyihiin travel agent waxay ku leeyihiin banking system wax walba marka magaalada Nairobi waa magaalo runtii Soomaalidu billions ay ku leeyihiin isla markaana ay aad ugu nool yihiin ay u degan yihiin iyagoo ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay waddanka Soomaaliya meeshan waxa ku yaala masaajidka caanka ah ee Jamia Mosque la yiraahdo oo isla bartamaha ah magaaladu soo horeeyay ku sheegay 4.4 million people ayaa ku nool 2019kii markii la sameeyay tirakoobka dadka lagu sameeyay dad ajaanib ah oo ka shaqeysa ku nool Hindi iyo Chinese u badnaadaan ayaa ku nool iyo Soomaalida iyo Afrikaanka kale marka waxaad ku arkaysaa dad kale inay u soo safraan iyo gawaari kaga imaanaya bariga iyo bartamaha Afrika kaga imaanaya waxaad arkaysaa gawaari Zambia, Zimbabwe, South Africa, South Sudan, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda aad ku arkaysid marka magaaladu shaqo la'aan way ka jirtaa average income kana aad ayuu u yaryahay ilaa iyo 200 ilaa 300 dollar ee dadka caadiga ay ku shaqeeyaan dadna si fiican ayay tabcan ugu nool yihiin dadna maaragtay waa shaqo la'aan marka Soomaalidu ku nool waxaan ku arkay inay dabaqo kala duwan ay leeyihiin dad dibadda ka imaaday halkan iska degay guriga ka iibsaday iyo waxaad ku arkaysaa dad iska shaqeysta oo nolol maalmeedkooda dabirta wayna ku nool yihiin aad loo safraa diyaarado badan ayaa ka baxa oo aada adduun weynaha qaasatan Soomaaliya way aadaan marka masaajidka caanka ah ee Jamia Mosque halkan ayaan ka arkaynaa marka junctionkii waan ka soo gudbay ereyadan dhan waxa loogu magac daray masaajidka Jamia daratan halkan ku yaala waqtigan lagu jiro waa bartamaha bisha Janaayo 2020 xaraaradda waa average 22 ilaa iyo 27 degree ay noqonaysaa xilli roobaadna waa lagu jira habeenkii iyo maalintii oo dhan roob ayaa da'ay xilligan aan barnaamijka aan diyaariyay marka haddii loo fiiriyo dhanka iyo security-ga runtii aad ayaa loo adkeeyey iyadoo ogtihiin arrimaha mar walba ka dhaca awgii city marketka ayaan iminka maraya ee Nairobi caanka ay ku tahay magaalada sida awgeed waa kawaankii xamar weyn oo kale waxaad ka dareemaysaa hilib iyo malay in uu ku yaalo dad badan ayaa ka shaqeysanaya meeshan jooga Nairobi City County ayaa la yiraahdaa guryaha waxaan arkay iyo hoteelada tusaalahaan hoteelada magaalada Nairobi waxyaalaha aan ku arkay waxa ka mid ah in hoteelada qaarkood lagu jiifsado $40 kuwa qaarkood lagu jirta ilaa iyo 200 ilaa 300 dollar mar walba qofka jeebkiisa ay ku xiran tahay dadka Soomaalidu inta badan markay yimaadaan waxay tagaan xaafadda Soomaalida ganacsiga ugu weyn billioniska canshuuraadka ay ka soo galaan Isli ayay tagaan hoteelo aad u qurux badan ayaan ku arkay oo laga dhisay oo kan hadda ugu caansan ee cusub ee starkiisa ilaa 3 ilaa 4 uu yahay waa hoteelka la yiraahdo Urban ayaan arkay marka fiican ka cabay waa meel aad u qurux badan Soomaalida odayaashuna ay fadhiistaan dadka intooda badan Parkland Westland waxa ku yaala malls aad u fara badan laakiin waxyaalaha aan la yaabo waxay tahay security-ga Soomaalidana ma aragtay markay yimaadaan way iska fahmi karaan qofkii ka yimaada magaalada Muqdisho qofkii ka yimaada iska fahmi karaa
qofkii kale maaragtay meelaha kale ka yimaada isku kara security-ga aad ay u adag tahay laakiin waxyaalaha aan aadka ula dhacay waxay tahay criminality-ga aad ay ugu yar tahay waxaad arkaysaa dadka ilaa iyo habeen barkii ilaa iyo kowda rag iyo dumar inay waddooyinka iska marayaan oo aysan jirin criminality haddii loo fiiriyo waddamada Yurub tusaale ahaan magaalada London meelo qaarkood laguma socon karo habeenkii waa lagu baadaya ama telefoonka ayaa maaragtay laga xoogaya laakiin Nairobi ilaa iyo hadda kuma arkin wax criminality tabcan waa iska jiri kartaa laakiin security-ga dhankaas aad ayaa loo adkeeyey mobile dafaya iyo qof la baadayo ama mindi lagu qabanayo kuma aan arkin arrintaasna dee waa arrin ammaan ay ku mudan yihiin waddan daris aan nahay oo taariikh naga dhaxaysa isla markaana baddeena nagu haysana way yihiin sidaa awgeed qofka wuxuu credit ku leeyahayna waa la siiyaa waxaa la yidhaahdaa intaas ay ku wanaagsan tahay $100 haddaad tahay qof dalxiisa imaanaya xilligan January lagu jiro waxaa lagu sarfeeyaa in yaroo ka badan 10,000 oo lacagta localka ah 10,000 shilin ayaa lagu sarfeeyaa marka hoteelada iyo mar walba iska ilaali inaad ka sarfataan dhanka iyo airportka kale waayo lacag yar baa lagu siinaya mar walba foreign exchange town kale kanoo kale hadda waxaa lagu bedelayaa maanta oo ay tahay bartamaha January 2020 ay tahay 10,000 ilaa iyo 300 ayaa lagu bedelayaa marka hoteeladana online-ka laga booking garaystaa sida booking.com hore idinku sheegay oo mar walba ka booking gareeyo waxaad helaysaa hoteelo 4-5 star ah oo ilaa lagu karayso $100 ilaa iyo $120 marka Uber-kana ayaa ka fiican taxiga double ayuu kaaga dhigaya tusaale ahaan Uber app-ka kan UK kan Mareykanka kan Canada uu ku shaqeeya Kenya as long as internet uu kugu jiro waad ku isticmaali kartaa sida awgeed kaas ayaa la dalbadaa haddii bartamaha magaalada Nairobi ilaa Eastleigh oo meesha Soomaalidu degan tahay 350 waxaa lagu tagaa shilin ayaa lagu tagaa oo markaa u dhiganta ilaa iyo $3 iyo bar ilaa $4 u dhiganta laakiin haddii taxi xad aad istaajisid wuxuu ku leeyahay waxaad doontid weligaa ha ka yeelin waxaad doontid waa 10 jeer ayaa laga dhigaya marka Uberka abkiisa uu ku shaqeeyaa Uberka dalbo isla markii automatic lacagta u sii markuu ku istaajiyo hadhihin account-kayga ku charge garee USA ama Europe ama UK waayo extra charge ee bangigu sameynaya Uberka dalbanaysa markuu ku geeyo waxaad leedahay waxaad isiisa ayaa leedahay receiptka isla markii lacagta kaash u sii waxyaalaha aan aadka ula dhacay iyadoo ay tropical ay tahay magaalada Nairobi ayaa waxa waa green city waa magaalo hadii loo eego magaalada Muqdisho green ah oo ma aragtay meel walba waxaad ku arkaysaa sida hadda aad u jeedaan park iyadoo ay tahay bartamihii magaalada ayaa isla markaa waxaad ku arkaysaa meelo dadku ay ku fadhiisan xilliyada shaqada laga soo baxo meelo laga cunteeyo ayaad ku arkaysaa waxyaalaha kale aanan u bogin waxa kamid ah wadooyinka waxaad dhihi kartaa Muqdisho ayaa ka wada fiican hadii loo fiiriyo wadooyinka qaarkood iyadoo ay tahay wadan dhaqaalihiisu uu aad u weyn yahay haddana waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ah in wadooyinka ay jabsan yihiin khaasatan xilliyada roobabku ay da'aan ay aad u jabaan laakiin haddii loo fiiriyo Muqdisho tabcan magaaladan ayaa weyn ka dhismo wanaagsan intaasna waxa u keentay waa maalgelinta lacag iyagu leeyihiin ma ahan waa maalgelin ay sameeyaan sida tareenka Mombasa ilaa iyo loogu sameeyay Nairobi oo kale oo Chinese ku sameeyay ayay tahay waxa ka dhigaya maaragtay wadan dhismay haddii Soomaaliya loo heli lahaa option ah in investment lagu sameeyo waxa hubaal ah in wadanka sidii loogu talagalay ama si ka wanaagsan uu dhismi lahaa oo nabadda la sii heli lahaa marka kulay Soomaali ahaan noloshooda haddii loo fiiriyo way dhaamaan oo dad middle class oo well educated ayay leeyihiin Afrikada kale haddii loo fiiriyo sababtoo ah gumaysigii Ingiriiska oo gacan weyn ka siiyay dhismaha civil society ka dhisay administration ka dhisay iyo iyadoo magaalada Nairobi ee caasimadda ah noqotay meel dalxiisku aad loogu yimaado lacagaha ugu badan ay ka keenaan waa lacagaha dalxiiska ee ka soo gala reer Europe iyo reer North America kuwaasoo taga safariga magaalada Nairobi u dhow ama kuwa magaalada banaankeeda ah tabcan xeebaha waad aragtay waxaan ka hadalnay magaalada Mombasa ayaan ka hadalnay marka magaalada Nairobi waa magaalo runtii aad iyo aad u xiiso badan joogisteeda isku day hoteelada Soomaalida inaad degtid si Soomaalida lacagta ugu laabato haddii kale waxaad degi kartaa hoteelada chainka Sheraton ama Hilton ah oo aan qaali ahayn ayaa magaalada isla markaa ku yaala insha Allah waxaan isku dayayaa intaan joogo in aan idin soo gudbiyo klibyo kale oo aan kaga hadlayo magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale
bariga iyo bartamaha Afrika ama koonfurta Afrika ee safar ku tago billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh